بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مقعي وساركين عبد الرحمن. كل وهل سؤال لكن فرعيس كلا هاي. وسو كوبيتو. ياسين على سمر كتيرين يوحش هاي. agriculture 1.9 million in log on day information كوزارة ورفاقين 5.4 مصبح markuu ololeysanayay wuxuu ugu weyn ku faanay waxay ahayd wax soo saarka wadanka tan waxay isweydiinayaan vice versa u shaqeynayso caqabada jirta wasiirka nooga shaqeyn doona isku bedeshay wuxuu madaxweynuhu campaign-ka ku galay iyo hoos u dhaca inta leeg maxaa la yiraahdaa wasiirku markuu sheegay wuxuu yiri haddii ayna nabadi jirin caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirayso 30 sano ugu dambeeyay budgetkeena ugu weyn dawlad kasta Soomaaliland timaada waxay ku doodaa state security-ga dadkuna waxay la maxaa la yiraahdaa la itaal darin human security-ga baa maqan ciidamadeenu waa kuwa ugu dayacan nolosha ugu hooseeya saldhigyadana waa kuwa ugu dayacan waxa isweydiinaya state security lacagta lagu bixiyo laftarkeeda halkay ku baxdaa maadaama human security adeegi kala bulshada u dayacan yahay farac kale check and balance-ga waxaan wadaa structure-ka dawladdu inuu wada dhisan yahay haday noqoto hanti dhowraha guud haday noqoto xisaabiyaha qaranka haday noqoto baarlamaanka inkastoo nasiib darada jirta ay tahay baarlamaanku maalin dhaweyd waxay naaqashayeen inay ka doodayeen xisaab xirki 2017 dawladda tagtay 3 sano ka hor isla markaana waxay ansixineen 2020 marka waxaad moodaa halka masiibo kale ka jirta laakiin haddana check and balance-ga inuu lumay qodobka ugu dambeeya mayka ka sii horeeya caalamka wasiir caalamka markuu kordho taxinku markuu kordho cashuurtu adeegaa kordha dee waxaaba jira tusaalaan xafiisadaan ka shaqeyno haddii admin cost-ka uu ka bato operation cost-ka wax lagu qabanayo su-aal baa la iska weydiiyaayo rebudgeting baa dib loo sameeyaa marka imika waxaad moodaa salariga agaasimo waxyadu shidaalkay guranayaan waxaasoo dhan in la isweydiiyo dadkiina maxaa loo qabtaa lacagta laga soo ururinayay ta ugu dambaysa isweydiinaya malaha isir baa ka jawaabi wasiirkuna waa raacin doonaa barnaamijkan caawa qabanay aan waqtigan oo dhan ku luminay miisaaniyadda 2020 iyo kuwa soo socdaba maxaa saameyn ka bedeli doonaa waa mahadsanti assalaamu calaykum waan mahad celinayaa isir oo soo qabanqaabisay barnaamijka iyo sidoo kale professor Yaasiin Cali soo si fiican ugu soo koobay miisaaniyadda sanadkan hal su'aal baan weydiin lahaa wakii wasiirku yiri su'aalo ka madax bannaan weydiin karta waxaan weydiin lahaa wasiirka waxaan la soconaa dawladda Soomaaliya waxay dadaal badan ugu jirtaa sidii looga cafin lahaa diintii arrinka maxaa ugu qorshaysan Soomaaliland bismillaahi rahmaani rahiim wasiirka waxaan sida su'aal ka weydiinayaa wasaaradda uu joogo oo kaliya iyo hal mar aan ku dari doono horta marka miisaaniyadda sameeyo calendar baa raacaa calendar raaco sanahan September meesha loo gudbiyaa miisaaniyadda golaha wasiirada mar walba dib bay u dhacdaa oo malaha November meesha loo gudbiyaa maxaa keenay dib u dhacaas wasiir wasaaradda maaliyadda shaqaalaheeda marka la eegayo waxa ugu jira kharashaad badan waxa kamid ah daaweynta caafimaadka shaqaalaha dhiirigelinta kharashka dakhli ururinta kharashka sameynta miisaaniyadda xisaab xidhada iyo maamulka kharashka dagaalanka kontrabaanka waa kharashaad ciida ka badan maxaa diiday in shaqaalaha wasaaradda maaliyadda loo sameeyo mushahar wanaagsan oo qofku ku shaqeeyo oo shaqo kasta ku qabto loogu sameynayaa kharashaad kala duwan oo dadka qaarna gaari karo oo dadka qaarna ay qaadan karaan dadka qaarna aan qaadan karin oo wasaaradda maaliyadda waxa jira 8 bilyan oo shilling oo ku jira guddiga doorashooyinka waxa ku qoran kharashka doorashooyinka Soomaaliland wuxuu ku jira 18 wuxuu ku jira 19 20 ku jira doorasho dhacday ma hayno diiwaangelin dhacdayna ma hayno maxaa sanad walba loogu daraa miisaaniyadda taasna waa ta kale marka miisaaniyadda la sameynayo hay'adaha dawladdu u soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda miisaaniyadda waa la doodaan waxtaan halka laga jaro halka loo kordhiyo idinka marka wasaaradda maaliyaddu sameynayso miisaaniyadda yaa la dooda yaa idinka ka jara halka oo halka ka gooya oo halka ka daaya okay thanks bismillaahi raxmaani raxiim kulli su'aal baan weydiin lahaa ku saabsan xagga aviation-ka
waynu ognay wasiir oo garoomadeenu habeenkii ma shaqeeyaan sababtay u shaqeyn waayeen wax kale maahee instrument landing systemkii dalkeenu ay ku degi lahaayeen diyaaraduhu ma jiraan marka maxaa inooga qorshaysan wasaaradda maaliyadda garoomada saynu ka arkayno iminka dee cigaal oo kale wuxuu miisaaniyadda lacag badan baa kasoo baxda markay maalinta degaan haddii habeenkii lagu darana dee kolley waxbay ka bedelmaan marka landing navigationkii iyo glide passkii instrumentka maxaa wasaaradda maaliyaddu uga qorshaysan inay ku kabto hay-addaas oo sanadkan qorshe ma ku jira wasaaradda maaliyadda waayahay waa badanka randomly baan u dooranaya markaa ninkan iga soo horjeeda su-aasheeda koowaad waxa weeyaan boqolkiiba 35 baa ku baxa security-ga waxaynu ogeyn dagaalkii yaraa shaqaaqada ceelaf weyn ka dhacay in dhammaan hay-adaha amnigu ay ku fashilmeen oo ay dhammayn kari waayeen mar haddaynay in hargeysa dhexdeeda markaan imika sii socdo aniga mobilkaygu badbaado male oo xaafadaydii lama gaari karo waa layga qaadaya waxaynu ognahay dhibaatooyin badan oo ka dhaca darafyada guud ee dalka oo dhan baynu ognahay in dad la iska laayo in ciddii doono la iska waxeeyo haddii lacagta intaa leegay ay dhammayn kari weyday shaqaaqadii ceelaf weyn maxaa loogu bixiyaa hay-adaha amniga lacagta intaa leeg su-aasha qaybteeda hore waxaa qaadatay inantu waxaa tiri kama muuqato ciidamada dabcan kama muuqato su-aasheeda labaad wasiir mideynta cashuuruhu siyaasad guud oo waqti hore xilligii cigaal la qaatay bay ahayd alla naxariistee dood badan baa kasoo noqota mideynta cashuuraha waayo dee markaynu caadiyan ognahay dee imika haddii batrool la soo saaro oo laga soo saaro sol xaq waxa u leedahay in wixii lagu heshiiyo ee percentageka gobolka ama degmada lagu celinayo ay qaadato laakiin maadaama ay customs cashuur kasoo xarootay ay tahay cashuurta customkuu qaadayo dee dadkao dhan bariiskii ay wada cuneen tamaandhadii ay wada cuneen ay tahay sharciga loo cuskaday tan beersadka gobolada gaar iyo degmooyinka gaar loo jara taana waan ku weydiinayaa waxaan ku dambeysaya nin weyn baascood oo kacaya kelmadaan raacsado ta saddexaad wasiir dowladdu ma waxay leedahay 2 buug oo deynta ay ku kala qorto deynta ku qorneed halkan sidii ay isri sheegtay dee waa tii 10 milyan baa loogu talagalaa la yidhi haamaha shidaalka haddii lacagtoodii loo jarayo shirkadii adeegee madaarka haddii lacagtooda loo jarayo mayna ahayn lacag lagu leeyahay qaranka oo inay ka muuqato deynta qaranka sidaa darteedna ay miisaaniyaddeedu ka muuqato qaranka maynahayn aad iyo aad baad u mahadsantii waan ka baxay waay maadaama su-aalahan oo dhani hal xubin ku dhaceen oo wasiirka ah macquul malaha maaha wasiirku inuu intaasoo noodo fara badan qaado marka waxaan odhan lahaa aan halkaa ku joojiyo dabeetana aan wasiirka ku celiyo kadibna roundkii ugu dambeeyey aynu galno insha laakiin haddaan su-aalihii la weydiiyey mid isu dul taago sidii la weydiiyey mid waxay ahayd beeruhuna waxa weeye waa 1.9 milyan wasaaradda warfaafintuna waa 4.5 milyan maxay ku dhacday waa su-aal saxa waayo dee beeruhu waxa weye waa wixaynu intifaacsanay meesha kasoo baxayeen wasaaradda information waanu u baahannahay laakiin inay dee ka sarreyso qiimo ahaan wixii kasoo baxayo dhulka su-aasheeday leedahay horta wasaaradda informationka wasiir waloo yimaadaba su-aashaasu isweydiiya laakiin 3 shay baa keena inta badan lacagtan faraha badan lee ku qoran horta waa mida waxaa ku jira kharashaadka telefishinada aynu ku leenahay yurub iyo dibadda oo kharashku halkan ku baxo keliya maaha waxaa jira kulleed ka aragtan umaleeyaa somaliland television iyadoo laga soo warinayo amba ingiriiska amba sweden amba meelo kale laga soo warinayo waxaa jooga wakiilaa jooga kharash bay leeyihin kaas waa qodob qodobkani waxa weeye xagga qalabka had iyo jeer qalab baa inaga dhiman sanad walba dalka 2 sanadood baan joogaayo mar walba qalab baa inaga dhiman runtii aan jabnayn marka kaasina wuu ziyaadiyaa waxaa iyaduna jirtaa dadka ka shaqeeyay idaacadaha iyo informationka iyo fanaaniinta berigii xitaa soomaaliya la isku jiray inta badan waxaa inta reer somalilanders markii waddanka dagaal ka dhacay halkan ay wada yimaadeen iminka wasaaraddii waxaa jooga ilaa 800 baa jooga oo shaqaale ah dabcan 800 waxay la imanayaan dee kharashkooda dee mushaharkooda keliya marka haddii aad eegto
marka taasuna runtii waa dhibaato jirta. waxaa loo baahan yahay restructuring waa loo baahan yahay, laakiin imika xaaladda jirta waa saa weeye oo keenaysa lacagta faraha badan hadda jira aragtaan. xagga beeraha, caafimaadka, tacliinta, in badan mashaariicda hoos yimaada waxayna siiya donorska. marka lacagta miisaaniyadda ku qoranay ma kuu sheegayso yacniga lacagta xaqiiqda ee runta ee gashay sectorka. waxaa laga yaabaa intaa labalaabkeeda amba saddexlaabkeeda inuu galay baa laga yaabaa, FAO oo kale iyo dee hay-adaha kale samafalka amba UN-ka amba NGOs-ka ee ka shaqeeya nagala shaqeeya beeraha. marka siday u yartahay nooma yara iyada laftigeedu. xagga deynta laga deynayo Soomaaliya, beryahan ba hadal baa socday in laga dhaafi doono Soomaaliya deynta badan ee lagu leeyahay oo ilaa 5 bilyan lacag 5 bilyan lagu leeyahay isugu jirta capitalkii markii hore la deymiyey iyo interestkii fuulay intii ka dambeysay. marka barnaamij baa jira lagaga dhaafo deymaha wadamada saboolka ah ee aan iska bixin karin, si markaa wadamada looga daayo deynta had iyo jeer shuruudaha lagu xidhay inay buuxiyaan. marka iminka international community waxay isku qanciyeen, World Bank iyo IMF in particular waxay isku qanciyeen inay Soomaaliya samaysay harumar xagga maamulka maaliyadda iyo miisaaniyadda ka dhigaya inay u qalanto in laga daayo deyntii. waa iskama bixin kartaba. haddii deyntaa la daayo markaa waxaa imanaya ee laynagu yidhi oo daba jooga deeqo iyo deymo. markaa Somaliland maxaa uga meel yaalla? horta dee lacagta waxaa lagu lahaa wadankii hore aynu qaybtaynu ka ahayn baa lagu lahaa. haddii deyntaas laga dhaafo, hadduu manfac ka daba imanayo, inaku dee waa u dhiga furanay. dabcan waxaynu eegaynaa shuruudaha ku xidhan, shuruudaha lacagta lagu qaadanayo. hadday yihiin kuwa wax yeelaya qarannimadeenna iyo dee magaceena iyo jiritaankeenna dee ma qaadanayno. hadday shuruudu yihiin kuwa inoo saamaxaya inaynu qaadano iyadan wax dhibaataya inaga soo gaadhin masiirkeenna waynu eegaynaa oo u maskax furanay, ma diidayno outright. arrinka ku saabsan budget calendarka iyo dibadhiciisa waa xaqiiq wey, dib u dhaca all the time. xataa sanadkan dib u nooga dhaca October bay 1 October bay in la geeyo baarlamaanka, maanaan geynin, November baanu geynin. sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyay aanu ku talagalnay inaanu calendarka sidiisa u raacno. laakiin maadaama loo baahan yahay in documents badan la abuuro oo aan haru abuurayn, abuuristii documentskaas ba waxay nagu qaateen waqti. laakiin next year insha Allah, sorry this year insha Allah, waxaan rajaynaynaa in sida calendarka ku qoran aan u soo gudbino miisaaniyadda 1 October insha Allah. lacagaha kala duwan ee la siiyo shaqaalaha maaliyadda ee ku jira miisaaniyadda, dhiirigelinta, gunooyinka, waxyaabaha noocaas oo kale. horta miisaaniyaddu, horta wasaaradda arrimaha maaliyaddu waa wasaarad weyn, waxaa ka shaqeeya 1539 baa ku qoran. gobolladoo dhan way joogtaa, degmooyinkao dhanna way joogtaa. wasaaradaha ugu shaqada badan leh marka dee laga reebo wasaaraddan caafimaadka iyo waxbarashada iyo xagga hore ka gelaysa maanta wasaaradda tirada shaqaale ka shaqeeya. waana loo baahan yahay, waayo waxaa loo baahan yahay in cashuurtii la ururiyo. cashuurtii waxaad uga baahan tahay ciidan. iminka xaafado walba xafiis baa ka jira, waa in laga howlgalo. magaalo walbaba, degmo walbaba dee dad shaqaalaa jooga ka howlgala. waxay shaqeeyaan saacado dheeraada, shaqadoodu waa shaqo adag, cashuurtu waa xoolo dirqi. qof ogol cashuur inuu bixiyaa ma jiro, gaal iyo islaam, caddaan iyo madow. qofna jeebkiisa in lacag ka soo baxdo ma jecla. marka waxay la kulmaan runtii dhibaatooyin fara badan bay la kulmaan. haddii aan la xusin lagu gunooynin, cid cashuurteeda kuu soo qaad heli maysid.
marka shaqada iskale runtii dhiirigelina waa loo baahan yahay laftigeeda shaqaalaha dhexdooda waa la dhiirigelinaa shaqada isku wada shaqa maaha qofka shaqada wanaagsanna waa in dee la dhiirigeliyo oo la maamuso maxaa mushaar ku filan loo siin waayey horta mushaharkanu bixina siisa wuu yari haddeeta waxa la ciidamadu waa mushaar bay qaataan aada u hooseeya waa wax yar bay qaataan waa in raashina iyo in mushaar imka la sugeeya laga yaabo ilaa $150 inay noqdaan ragga frontka joogay carruurtooda joogta magaalooyinka waa tough life way adagtay waxaan u baahanahay runtii inaynu u korino miisaan inaynu korino mushaarka shaqaaloo dhanbaba shaqaalaheenu siisa mushaarku qaata aad bay u yar tahay dad badani waxay ugu soo doontaan waxay shaqo ugu soo doontaan dowladda maaha lacagta laakiin waxa weeye waa dee qof shaqeeya wuxuu doonaba ha qaatee uu ka niyadsan yahay qof aan shaqaynin mushkiladda ugu weyne waxa weeye waxa yar wixiina maha waynu ka xistinay waxaynu haynaa baygaa yar keegaa yar waxaynu u baahana keega inaan ballaarino keegu see noogu ballaaranaya keegu wuxuu noo ballaaranaya markuu dhaqaalaheenu ballaadho dhaqaalaheena maxaa ballaarin kara markaa wey su-aashu dhaqaaluhu wuxuu ballaadhaa markuu wax soo saarku bato wax soo saarku xaguu ka imanaya markaa wax soo saarku wuxuu ka imanaya marka la isu geeyo muruq iyo maal iyo maskax soo intaa maaha halkaas wax soo saarku ka imanaya iminka mushkiladda jirtaa waxa weeye maalku amba inooma hambaysnaanba wuu nagu yariyey horta maalkan dibadda accesskiisu wuu nagu yariyey oo baan waxba kama qaadan karo laynama support gareeyo halka mushkilad baa ka jirta iyada laftigeena savingkeenu wuu yaryahay waa 10% shilinkeena soo halka dollarina soo gala guud ahaan marka la isku celceliyo waa 10 senti waxaynu ka dhignaa Chinese waa 40 senti bay dhigaan sinu isu gaarina marka hataa wadamada aynu waxaynu Afrikaanka ah waxa weeye waa 20 saving code aan 20 baa wahaynba waxaan ma save kareynaa waxaan u baahan wax save kareyno si marka loo helo lacagtii la maal gashan lahaa baaninkeenu waxaan u baahan inay ka bataan marka waa mushkilad dhaqaale mushahar yaridu dhinaca markaad u eegto haddaa wasaaradda tihiin waa xisaabisaan wasaaradaha kaleba markay miisaanada la yimaadaan ayaa idin xisaabiya waa sax weeye laakiin waxaan la qabnaa wasaaradaha maaliyadaha oo dhan mid noo gaara maaha dabcan iskama qaadi karo waxaanu doonno dee iskama samayn karo taas waxaan ahayn moral baan ahayn miisaaniyaddeeda inta sanadkii ku korodhay percentage ahaan waxaa laga yaabaa in ay kuwa dhexe ku jirto amba averagekaba ay ka hooseyso ayaa laga yaabaa landing systemka airportkeena waa run ma lahaa weerarkii habeenkii diyaaradu kuma soo degi karaan xitaa haddii loo baahdo waxaan malay mid baa jiraan temporary jiraan malay haddii laga maarmi waayo laakiin dee kii rasmiga ahaa ma lihin ma loo baahan yahay haa miisaaniyadda sanadkan ma ku jiraan maya saan filay ma ku jira kuma jiraan filay ma tahay in lagu daro haa way tahay in lagu daro waa u baahanna airport dee leedle taas ma laha waad ku raacsanay shaqaaqadii ceelaf weyn haddaynu dhamaystiri weyne socon kamahayn right wata alxamdulilah shaqaaqado badan baa inaga soo afjarmay yacni bibarakat illaah run haddaad doonayso yani xagga ilaahay subxaanahu watacaala ilaah ba mahad iska leh shaqadaa ceelaf weyn waa la dadaalay dad baa runtii u guntaday waliba dhalinyaro runtii ilaa 10 dhalinyaro baan malaynaya ahaa inuu wadaadaa ayaa arrinka bilaabay 4 sanadood buu arrinkaa socday 4 sanadood buu taagnaa ayaa runtii initiative qaatay uu soo ururiyay arrinkii ilaahay subxaanahu watacaalana wuu fududeeyey maallo waa galay laakiin marka loo eego runtii yani hawsha la qabtay maal ma ahayn key factorku waxaa dadaalka dadka buu ahaa runtii dadaalka dadka weliba deegaanka ayaa runtii keenay mataqaana alxamdulilah iyagana wuu mahad celinay intii ka qayb gashay laakiin
Somaliland ahaan geeskeenu ku naalo iyo meeshan ku naalo aawadeed inkastoo aanay muuqan inuu dagaal ku jiro haddana cadow badan bay nagu xeeran ciidankeenu wuxuu iskaga jiraa runtii halgan buu iskaga jiraa 24 saacadood way jiraan mashaakil crime urban crime uu iska jiraa kan moobilada la iska qaatay uu jiraa guud ahaan meel walba uu ka jiraa imka Kenya Nairobi ka tagto Nairobi gaariga daaqadiisa rogi maysid waa laga dafaya waa mushkilad weeye laakiin taa macnaheedu maaha inuu crime keenu inuu ku justify garano because crime kale meel kale ka jira runtii waan wax ka qabanay way waa shaqo inoo taala aanu baahanahay ana think wax laga qaban karaa waxa weeye iyadan amniga loo deenin ciidanka kaliya booliiska kaliya waxaanu baahnay civil defense system baynu baahnay uu qof walba iska xil saaro isagu xaafad iska xil saaro imika way jiraan laakiin in la xoojiyo ayaa runtii loo baahan yahay waxaana keenaya dhibaatada inta badan shaqo la'aanta dhalinyaradii waxay doonayaan wax haystaan baa kala jaada mobile buu doonayaa wax kale uu doonayaa waxaan Facebook kaarka isaguna ku hameeyaa mana haysto marka taas ay keenaysa maartay laakiin guud ahaan Somaliland waa wadan runtii safe way cid kastoo timaadaba runtii way arrinkan noo barta ilaahay baa inay siiyay subxaanahu wa ta'ala waxaan isleeyahay waa calanka tawxiid ku qoran to be honest wala nagu dhawra mideynta cashuurta 10% taariikhdeedii waad ka warantay meel looma gaara waa kastamyada oo dhan waxa la siiyaa 10% ma loo baahan yahay ma laga yareeyaa ma laga badiyay debatable laakiin dee waa sharciga imka caynkaas 10% siinaya deyntu maxay maxaa deynta loo gelin waay tolo miyah alright maxaa meel keliya loo gelin waayo waa sax wey waynu u baahan inaynu midayno deymaheena marka runtii waa waxyaabahaanu hadda intii aan joogay sanadkii dhawatay waxaanu abuuray qayb ku takhasusta deymahaba sideedaba ka warhayntooda bixintooda waxoo dhan ururintooda marka waa qabaa in deymaha meel lagu soo ururiyo dabeedna si nidaama halkaa uga baxdo marka taa insha allah waa samayn doonaa waxaan u malaynaya ka jawaabay su-aalihii waxaa jirtay su-aal yaasiin si toosa loo weydiiyey oo la xidhiidhay maxaa ka fulaya miisaaniyadda maxaa kulankeenan uu ka bedelayaa miisaaniyadaha soo socdo saameynayo kulle sababtan wasiirka caawa bartan u keenay waxa weeyaan in talada beebarka ku qoran iyo talada soo jeedisaanba uu weeleeyo oo miisaaniyadda 21 wixii aynu bartan iskanina wanaagsan uu inaga qaato kulle markaa isagaan uga fadhinaa ama ka rajeynaynaa wasiirka inuu hawshaa qaato isaga tiimkiisa oo qabo inay wax badan ka qabteen miisaaniyadda 20 marka la barbar dhigo tii 19 imikaba waxaa muuqda qodobo badan oo wasiirku takeaway ka qeyb tusaale ahaan waxaa laga hadlay fraud iyo waxaas wuxuu ka sheekeeyey sanadkan tiimkiisu inuu yahay accountability-ga inuu culays ka saari doono waxaa kaloo laga hadlay cashuuraha in la mideeyo inay ka dhex muuqdaan budgetka marka dhammaan waxaasoo dhan I think the minister is taking note of them